بسم الله الرحمن الرحيم. وإبراهيم عبد الله إسحاق waxaan sii ambaqaadi doonaa ama aan sii dhammaystiri doonaa qaybtii labaad xog ogaanka geeska Afrika iyo barashada dalkeena annagoo aan kasii wadi doono halkii noogu dambeysay oo ahayd sidee ku baxday magaca Muqdisho. Magaalada Muqdisho oo ah caasimadda dalka Soomaaliya waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu faca weyn ama magaalooyinka ugu caansan dalka Soomaaliya, waxayna ku taallaa xeebta Badweynta Hindiya, waxayna ka mid tahay magaalooyinka ugu da'da weyn dalka Soomaaliya. Taariikhyahanadu waxay sheegaan magaca Muqdisho inuu ka yimid laba xaraf oo ah maqcadu shaah, micnaheeduna ay tahay goobtii uu fadhiisan jiray boqorkii cajabiga oo aanan ahayn Carab. Markii uu caan ku noqday bukaan fadhigiisa, magacii caasimadii taariikhda lahayd ama taariikhdeedu aan la ogeyn, khubaro Carabi ayaa ku soo koobay labada eray oo ah maqcad iyo shaah, taasoo ay ka dhigeen Muqdisho. Eray ahaan, erayga Muqdisho waxa uu ka kooban yahay laba xaraf oo ah maqcad iyo shaah. Erayga maqcad waxaa la oran jiray ama waxaa laga jaray xarafka cayn, kaasoo ay ka dhigeen markaas maqad oo kaliya, iyo shaah. Markaas ayuu eraygii ku noqday maqad shaah, iyadoo haddana xarafkii alif laga jaray shaah marka uu Carabiga ahaan u qoran yahay oo lagu bedelay waaw. Markaas uu magacii ku noqday Muqdisho, oo waxaa dheeraad ku soo noqday h ama ha, si walba si aad u taqaano. Intaas kadib, dadka qaar ayaa oran jiray Muqdisho oo xarafka ha ku dhawaaqi jiray ama xarafka h, taasoo ay dadka qaar ayagana ay iska jareen xarafka h ama xarafka ha oo ay ka dhigeen Muqdisho. Taariikhdaas fog waxay dadka qaar ay qabeen magaca Muqdisho inuu asal ka yimid goobtii lagu gadi jiray ama lagu kala iibsan jiray xoolaha. Magaca Muqdisho waxa uu yahay mid leh taariikh fog oo ilaa iyo qarnigii 15aad. Xeebaha bariga Afrika ayaa ayaguna ku yiraahdeen magaca magaalada Muqdisho, oo ay ka dhigeen xarafka markii loo dhawaaqo sida ay u qoran tahay Maqdisho oo ah xarafka ha. Afafka Boortaqiiska iyo Isbaanishka ayaa xagga dhawaqa ah x ama ha sida shaah, oo ah inay ku dhawaaqaan dad ka soo jeeda dalalka Boortaqiiska iyo Isbaanishka, kuwaas oo u imaan jireen magaalada Muqdisho si tijaara oo ah xagga ganacsiga. Afkooda markaas waxa uu noqonayaa xarafka x inuu ugu taagan yahay sh oo ah shaah. Magaalada Muqdisho oo aan horey u sheegnay inay ka mid tahay magaalooyinka ugu da'da weyn dunida, waxayna leedahay xaafado fara badan, waxayna ka mid tahay magaalooyinka taasoo ah magaalooyinka ugu caansan dalka Soomaaliya. Waxaana ka mid ah xaafadaha ugu caansanaa Xamarweyne oo hadda ah degmo, iyo xaafadii Shangani la oran jiray oo ayadana ah degmo. Taasoo aan sii wadi doono ama aan sii ambaqaadi doono qaybtii annagoo sii falanqayn doono sidee ku baxday magaca Xamarweyne iyo sidee ku baxay magaca Shangani iyo dadkii u bixiyay ama siyaabihii ay ugu baxday. Insha Allah waan sii wadi doonaa.